بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan xalay arkay waraaqo la leeyahay waa mowqifka Jubbaland. waxaan kaloo hayaa waraaqo ka soo baxay cisbitaalka uu jiifo Axmed Madoobe ee uu leeyahay niman yahow waan qallahay. dee haddaad qalan tahay waxay ahayd inaad ku-xigeenkaaga soo dirtid. haddaad qalan tahay waxay ahayd inaadan warmurtiyeed soo saarin. hadday wuxuu runkaa yihiin oo ay daacad ka yihiin oo aad ixtiraamayso gogosha dhuusamareeb, dee sida aad u soo qorteen warmurtiyeedka si ka fiican baad u dhigi lahaydeen. laakiin anigu waxaan ka soo qaadanayaa nin daba socda oo ku daba socda qabyaalad, oo aan masiir kismaayo iyo dan kismaayo midna aan muraad ka lahayn. kolkii aan ka soo baxayay muqdisho waxaan anigu ilaahay ka baryey inaan labadaa nin aanay shirka iman, bal Soomaali iyo beesha caalamku hayla aragto sida aan u aqaan. qodobkaan isa ku dhafaya waa meel ka dhac, waa meel ka dhac gogosha ummadda galmudug deggan ay dhigtay in Siciid Cabdulaahi Deni iyo Axmed Madoobe iman waayaan. gogosha farmaajo ma dhigin. 5 goorood buu muqdisho ugu yeedhay, way diideen in Axmed qoorqoor gogosha dhigo. kulankii gaalkacayo Siciid Deni iyo qoorqoor bay ka dhalatay. Siciid Deni baana yidhi war anigu xamar tegi maaye adigu gogol noo dhig. saaka inuu gogoshii ku ballan fulo oo wax aan fiicnayn uu dusheedii kaga tago. soomaaliyay ma garbaa? gar maaha. reer Puntland waxaan leeyahay war nin door hadduu idinku jiro dee isqabta oo waxa berri gar laydinkaga helayo iska daaya. maaha dhaqan gogol la fidiyey oo la yimi oo haddana la yidhi iman mayno oo dana aanu leenahay kama muuqdaan, oo danaha dawladaha shisheeye aanu u adeegno kama muuqdaan, kana soo bixi maayaan. adduunyadu maanta maaha. qodobkaa intaasaan ku dhaafayaa. khudbaddii madaxweynaha galmudug Axmed qoorqoor waa soo dhoweynayaa. waxaa jiray tuduc uu lahaa gaariye, walaalkay hadduu diday naag duday baa la celiyaaye amba maan ka daba tago. horta khudbaddu sidaasay ahayd. naag dudaa la celiyaa. walaalkay hadduu diday naag dudaa la celiyaaye amba maan ka daba tago. walaalkay hadduu diday naag dudaa la celiyaaye amba maan ka daba tago. waray gogosha kaalaya ay galmudug fidisay. gogoshu mid farmaajo fidiyey maaha, mid madaxweynaha Soomaaliya fidiyey maaha. Axmed qoorqoor baa marti loo yahay, reer galmudug baa marti loo yahay. warohay gunnimo ka doorta gobonnimo.
qodobka intaasaan ku dhaafaya mar aan dhegaystay garaad jaamac garaad cali oo uu la hadlayay Puntland wuxuu yiri anigu gunnimo ninna kula tartami maayo hadalkii baa igu soo duxay waa garaadka saaxdheer fadhiya war gunnimadu waa u dhalasho shirkii Jabuuti markii aanu isugu tagnay been idiin sheegi maayo waa recording file bay ku jirtaa arkiifyada Jabuuti bay ku jirtaa ninkii joogay baa ka warhaya sidaasoo kale ayay gogoshii uga baxeen markaasay qolkii iyo guryihii la dejiyay galeen Ismaaciil Cumar Geella yaabay warnimo kuwa maxay baa uu yiri haweenkii Soomaaliyeed ee shirka joogay baa u tegay Allah ha u naxariistay Xasan Abshir baa hogaaminayay war waxa aad sheeganaysaan beleneriga ka sheegta oo gogosha la dhigay intaad ka baxdaan guryaha ha isku xidhinnina sidii bay ku yimaadeen sidii baa Ismaaciil Cumar uu 20 kursi ku kordhiyay qodobkaana intaasaan ku dhaafaya waa dhaqan ay siyaasiyiinta Puntland leeyihiin inay gogol ka dudaan waa soo jireen bay ahayd maaha ugub laakiin waxaanay fahmin in maanta adduunku uu joogo adduun casri ah oo taariikhdooda la soo fagayo qodobkaana intaasaan ku dhaafaya alxaqiiqa saaka yaa ceebaysan saaka waxa ceebaysan ciddii tiri gogosha noo dhiga ee timi ee dhuusamareeb wan ahayd ee haddana dhuusamareeb tuu timi ee haddana tiri dhuusamareeb tiri iman maayo waxa weeye siyaasiyiin u adeega mustacmar waa siyaasiyiin u adeega dalal shisheeye qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa walaalkay hadduu diday naag dudaa la celiyaayee amba maan ka daba tago waa murtidii gaariye war madud maad ku jiraysaan ilaa inta aad ka helaysaan dantiinna madud maad ku jiraysaan nin dooday laga badiyey nin cadhaysan laga badiyey nin xanaaqay laga badiyey nin gogol ka kacay laga badiyey nin gogol loo fidiyey diiday laga badiyey war waxaasoo ceeba baa dusha idinka saaran waa haddaad tihiin iliidka Puntland Axmed Madoobe iyo Kismaayana sahayate Soomaali baa idinka badan Soomaali way idin arkaysaa jiilka yaryari wuu idin arkayaa waxaad ahaan jirteen waxa aad tihiin waxa aad doonaysaan intaba waa faylkay idin gelaysaa ilaahow hana dulayni ilaahow dulinimo ma qaadi karee hana dulayni shacabka reer Puntland waa inay kacaan oo ay ka diidiyaan gunnimada loo horseedayo qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa shirku siduu sheegay madaxweynaha Galmudug waa furmay
shirka sidii uu sheegay madaxweynaha galmudug uu socon sidii uu sheegay madaxweynaha galmudug walaalayaal gogosha galmudug baa dhigtay hadday galmudug dhigtay waa inaad timaadaan waa la dhaafay waa laga tegay xilligii gabre uu faraha la soo gelayay danaha ummadda Soomaaliyeed kuwa kale oo durbaan tumanaya colaadeedna waaban maqlaayay nina idinkagama liito الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.